السلام عليكم. فاضل بن صالح السمرائي وعالم وين oo Ciraaqi ah waxaanu ka mid yahay dadka ugu waaweyn ee aqoonta u leh cilmiga naxwaha iyo sidoo kale luqadda Carabiga. Maalmaha ka mid ah waxa uu dareemay diiqad aad u fara badan iyo fikir maskaxdiisa ku wareegaya oo uu jawaab u leeyahay, taasoo ku keentay maalmo fara badan inuu seexan waayo. taasoo ay sababtay su'aalaha faraha badan leh ee uu iska weydiinayo diinta Islaamka iyo weliba caddayn ku saabsan jiritaanka Ilaahay. maalmo badan ayay hurdalaan igu dhacday waxaana igu sababay su'aalaha badan ee maskaxdayda ka guuxaya ee aan jawaabta u laayahay. Tusaale ahaan, talow Ilaahay miyuu jiraa? Talow Nabi Maxamed fariinta la soo dhiibay ma runba? Shaki aad u weyn ayaa iga galay jiritaanka Ilaahay. waa siduu digtoorku yidhi, xitaa wuxuu ka shakiyey inuu rumaysto nebinimada Nabi Maxamed calayhi salaatu wassalaam. waxaa shaki igaga jiray jiritaanka Ilaahay. laakiin maalmo yarba iyadoo ka soo wareegin waxa uu helay sir aad u weyn, taasi oo ay sabab noqotay kaneeco yar oo noloshiisii oo dhan beddeshay. ugu dambayntiina wuu ku qancay jiritaanka Ilaahay iyo xaqiiqada diinta Islaamka. haddaba waa maxay digtoorku waxa uu ka helay kaneecada ee noloshiisii oo dhan sabab u noqotay inay isbeddesho, shakigina uu ka baxo? aan wada ogaano qisadu siday u dhacday. laakiinse marka hore intaynan qisada bilaabin waxaan idinka codsanaynaa inaad janaalka subscribe inoo saartaan, fiidiyoyadana meel fogaad gaadhsiisaan, like-ta iyo sheertana aad ugu dadaashaan si aad u heshaan qisooyin cusub oo kuwan oo kale ah oo aad u macaan kuna saabsan diinta Islaamka. waad mahadsantihiin. waxaan ahaa mid ka shakisan jiritaanka Khaaliqa, waxaanan u haystay inaanuba jirinba wax muumin ah. dadkoo dhan mulxadiin ayaan u haystay, waxaanan kaloo aaminsanaa inaanu qofna igu qancin karin in koonkan uu jiro ilaah maamula. arrintaas ayaa aniga igu dhalisay fikir iyo soo jeed fara badan, taasoo aan ka nasan waaye. laakiin subxaanallah, Ilaahay ciduu xaqada u bayaaminayo meel yaroo fudud ayuu ka tusaa. aniguna Ilaahay ayaa igu caawiyey inaan ogaado xaqiiqada iyo jiritaanka Ilaahay. wixii aragtida ku saabsanayoo dhan hal mar ayay isbedeleen, waxaana isbedelkaas sabab u ahaa shay yar oo la yidhaahdo kaneecada. qisada Dr. Faadil bin Saalax as-Samraa'i waxay ka mid tahay kuwa ugu cajiibsan. digtoorku waxa uu dhashay sanadku markuu ahaa 1933 waxaanu ku dhashay dalka Ciraaq, gaar ahaan wuxuu ku dhashay magaalada Samarra. aabihii iyo hooyadiina waxay ahaayeen laba qof oo muslima oo Ciraaqiyiin ah. Faadil waxa uu ahaa mid yaraantiisii lagu soo barbaariyey diinta, waxaana la soo baray Quraanka Kariimka, waxaanu ka soo bartay gaar ahaan masaajid ku yaala Samarra oo la yidhaahdo Xasan Baasha, kana mid ah masaajidada ugu waaweyn ee laga barto Quraanka Kariimka. waxaanu ahaa wiil yaroo aad u caqli badan, taasi awgeed waxa uu Quraanka Kariimka ku bartay muddo aad u yar. dugsigiisii hoose iyo dugsigiisii sareba waxa uu ku soo qaatay magaalada Samarra, halkaas uu kaga soo qalin jabiyey. kadib waxa uu kacay magaalada Baghdad, gaar ahaan Cadamiya, halkaas oo ka noqday macallim markuu ahaa sanadku 1950. waxaanu macallin sii ahaa ilaa iyo intii uu ka qaadanayay shahaadada digriga. waxbarashadiisii si xidhiidha ayuu u sii watay ilaa iyo uu ka noqday ugu dambayntii digtoor weyn. waxaanu ku soo qaatay waxbarashooyin fara badan jaamacadaha kala duwan ee dalka Ciraaq. waxaanu bara ka noqday jaamacado kala duwan oo ku kala yaala Ciraaq, Masar, Kuwait iyo sidoo kale Cajmaan. waxaanu ku sii xeel dheeraaday weliba cilmiga Islaamka, waxaanu noqday kuwa ugu waaweyn ee loo daba fadhiisto daraasaynta cilmiga ee dalka Ciraaq sanadku markuu ahaa 1983. wuxuu sidaa ahaadaba ninkii ku soo barbaaray barashada diinta Islaamka iyo daraasaynta ayaa waxa uu noqday markii dambe mid maskaxdiisa iyo caqligiisaba ay ka dhex guuxayaan su'aalo fara badan oo shaki ku dhaliyey, kuwaasi oo ku saabsan Islaamka iyo jiritaanka Ilaahay iyo inuu rumaysto Nabi Maxamed nebinimadiisa sallallahu calayhi wasallam. waxaanu yaqiinsaday oo iska dhaadhiciyey inaanu koonkan qof mu'mina ama muslima aanu jirin. waxaanu baadhitaan ku sameeyey iimaanka iyo jiritaanka Ilaahay. daraasadda faraha badan uu sameynayna waxay ku keentay inuu muddo fara badan oo xidhiidha seexan waayo, maskaxdiisuna fikir badan ay keento. dadkana dhammaantood waxa uu haystay dad mulxidiina oon Ilaahba rumaysnayn. shaki badani markii uu ku dhashay kadib waxa uu yidhi, waxaan ahaa mid ka shakisan
jiritaanka ilaahay. shakigaasina khalkhal badan ayay igu dhaliyey run ahaantii. sidaan markaa rumaysnaana waxay ahayd inaanan koonkanba wax muumina unsan jirin. allahu akbar, ma ilaahay heerka? dadkoo dhan waxaan u haystay inay mulxidiin yihiin, in yar un mooye dhammaantoodba waxaanan islahaa koonkan ma jiro qof kugu qancinaya inuu ilaah jiro. subxaan allah. marnaba arrinkaasi aad ayay igu adkaa, waxaana iga soo xidhmay waddo kaste. waxaan islahawn waddada ugu fiican ee aad qabsan karto. amriguna aad ayuu u yar yahay. waxaan islaha marka bal waddo fiicanun hel intaanay taada noqon. arrintan mulxidnimadu waxay igu keentay culays aad u fara badan. xitaa waxay ii diiday in aan seexdo. fikir iyo welwel badanna way i gelisay. digtoorku isagoo sii wata hadalkiisa waxau sheegay xitaa mararka qaar hurdada dhexdeeda inuu ku fakari jiray oo ka soo toosi jiray isagoo ka warwaraya wuxuu samayn lahaa. waxaanu sii raaciyay hadalkiisa xitaa mararka qaar marka uu suuqa u baxo asxaabtiisu ay salaamaan inaanu salaanta ka qaadi jirin, isagoo maqlaya ayaanu haddana ahaa qof maqna jooga ah oo ay maskaxdiisu tashuush ku furan yahay. waxaanu sheegay in aanu marnaba quusan oo uu raadinayay xal kale uu kaga bixi lahaa fikirkan haysta. kutubo fara badan ayuu ku sameeyey baadhis si uu uga helo waddo kale oo arrintan ugu helo xal. kutub kasta oon baadhis ku sameeyeyna waan ku qanci waayey, waanan ka waayey xal aan kaga bixi karo dhibkani haysta iyo fikirkan faraha badan leh. waxaanan daydayey daliil cad oo ii sheegaya jiritaanka ilaahay. muddo badan kadib waxaa iga go'ay shakigii faraha badnaa ee aan ku jiray. wixii intaa ka dambeeyey wax kastaaba way isbeddeleen oo aragtidaydu igu riixaysay. kadib bannaanka ayaan u baxay. waxaan eegay cirka iyo sidoo kale buuraha, cadceedda iyo geedaha, taasi oo sidii aan moodayey ka duwan. waxaanan xaqiiqsaday awoodda ilaahay iyo jiritaankiisaba. caddayntii kugu horraysay eed ogaataa maxay ahaydna adoo noo sheegaya doctor? caddayntii ugu horraysay in ogaado waxayd buugaag ayaan akhriyey. waxaanan ka dhex akhriyey xayawaan ka mid ah xayawaanaadka kuwa ugu yaryar, kaasoo ah kaneecada. waxaan arkay kaneecada marka ay dhalayso, habka ay u marayso dhalmada iyo xubka ay samaysanayso, kaasoo ay kala mid tahay caarada. ukuma yaryar ayay samaysanaysaa, kadib way ku dhalaysaa. markay dhasho iyadii way dhimanaysaa. subxaan allah. kuwii ay dhashay ayaa iyaguna koraya, iyaguna isla dariiqii ayay marayaan. su'aashaan isweydiinayna haddaba waxay tahay, beedkan xubka ay ku dhalayso iyo habkan ay marayso yaa baray, yaa u sheegay hooyada kaneecada inay sidan samayso? taasina waxay caddaynaysaa jiritaanka ilaahay, inuu ilaahay ku ilaahamiyey kaneecada inay sidan samayso, iyadoo weliba ka mid ah makhluuqaadka kuweeda ugu yar uguna daciifsan. ilmahaasi waxay korayaan iyagoo aan arag hooyadood. allah, hooyadeed iyagoon arag? hooyadood iyagoon waayo arag. haddii hooyadeed arki lahaayeen way bari lahayd. marka hooyadoodan barin ayay sidaa ugu barbaarayaan. iyagana ilaahay baa ku ilhamiyey, waana awoodaha ilaahay. kadib doctor faadil waxau isweydiiyey yaa baray waxaan oo dhan? waa allah. ilaahay ayaa awooda wuxuu doonay inuu sameeyo. sidaasna waxaan ku yaqiinsaday jiritaanka ilaahay iyo awoodihiisa. halkaasaanan ku toobad keenay